أوصي نفسي وإياكم إخوتي الكرام أن نجعل القرآن قوتا لقلوبنا، وكما أن أحدا لا ينسى طعامه إن نسي الفطور والغداء فمن المحال أن ينسى العشاء. إن كنت صائما لا يمكن أن تذهل وتنسى عن الفطور، كذلك اجعل القرآن قوتا لقلبك لا تنساه أبدا. ومهما انشغلت أو شغلت بأي شيء آخر فاجعل ختام يومك أن تتلو كلام الله متدبرا لمعانيه مهتديا بهداه. waxaan naftayda iyo walaalahayba u dardaarmayaa inaan quraanka quud iyo nafaqo oga dhigno qalbiyadeenna sida uusan qofna u iloobin cuntadiisa, oo hadduu iloobo qureecdiisa iyo qadadiisa aysan suurtagal u ahayn inuu iloobo cashada. haddaad sooman tahay suurtagal ma aha inaad suxuur iyo afbilow la'aan ahaato. sidoo kale qalbiyadeenna aan quraanka quud oga dhigno. ha iloobin arrintaa. si kasta ood ugu mashquulsan tahay ama lagugu mashquuliyo waxyaabo kale, maalintaadu yaysan gabagaboobin adiga oo aan akhrin hadalka Ilaahay, adigoo dhuuxaya macnihiisana u fiirsanaya kuna hanuunaya hanuunkiisa. kelmadda aadka u quruxda badan waxaa nala wadaagay sheekheenna aan jecelnahay الشيخ cabdirashiid ibnu sheekh cali suufi, allaha noo xifdiye. ilaahay sheekhaha ka abaalmariyo, ciddii isoo gaadhsiisayna ajir aan dhammaanin allaha siiyo. cid kasta oo kelmaddaasi dhegaysata ku intifaacda ummaddana sii gaadhsiisa, allah waxaan oga baryayaa jalla jalaaluhu inuu isaga ubadkiisa tarankiisa cid kastoo xaq ku leh inuu ilaahay ka dhigo ahlu qur'aan, kuwa qur'aanka xifdiya, kuwa qur'aanka akhriya, kuwa qur'aanka fahma, kuwa qur'aanka ku camal fala, kuwa qur'aanka ku tadabbura, kuwa qur'aanka dadka intiisa kala gaadhsiiya. ilaahayow waxba kuguma aha. allaahumma aamiin, allaahumma aamiin. ilaahayow cid kastoo aamiin tidhaahda, ilaahow cid kastoo aamiin tidhaahda ducada u aqbal. في طيبة القرآن تذكروا جبريل يهل بالتنزيل، والمصطفى يتلو في طيبة القرآن، في صحبة الأبرار وصفوة الأخيار، من حولهم أنوار فاضت من القرآن، في صحبة الأبرار وصفوة الأخيار، من حولهم أنوار فاضت من القرآن.